السلام عليكم أخيرا مeel walba joogtiin oo mar kale muuqaal cusub oo ku eegi doono mowduuc gooniyo ku saabsan muxuu yahay khilaafka u dhaxeeya labada kooxood ee Arsenal iyo West Ham United kaasoo sababay inaaba la shaacinba heshiiska Declan Rice oo gadaal u dhigay maxaa la isku hayaa maxay labada kooxood ku kala tagsan yihiin khilaafku halkoo ayuu ku saleysan yahay ayaan eegaynaa haddii aan muuqaalka ka hesho noola garay kana subscribe noo saar kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa ka careysan qaabkii Arsenal ugu agjiidayso dhameystirka heshiiska Declan Rice oo hore isku la meel dhigeen qiimaha isbuucii ugu horeeyay ee suuqa kala iibsiga balse nimanka Gunners ayaa waliba heshiiskan dhameystirin ayaga ayuu xaggooda ka dambeeya West Ham United ayaa ogolaatay in 105 milyan kaga iibiyaan Declan Rice kooxda kubadda cagta ee Arsenal qorshuhuna wuxuu ahaa in 100 milyan farasaar looga dhigo nimanka West Ham United halka 5 milyan lagu xiray in bandhiga ciyaaryahankan oo ka sameeyay Emirates Stadium iyo guulaha uu la gaaro kooxda kubadda cagta Arsenal lagu bixiyo iyada inta ayadoo lagu heshiiyay warbaahinta Ingiriiska hadda waxay sheegayaanba in qareenada Arsenal ay wali saxiixan heshiiska rasmiga inkastoo heshiiska shakhsiga oo ciyaaryahankan uu la gaaray kooxda Arsenal tijaabada caafimaadna uu ka gudbay xidiga reer England sida uu qoray wargeyska The Sun West Ham United ayaa waxay haatan ka careysan tahay waqti lumiska ay ku hayso Arsenal oo ah in lacagaha laga soo daahiyay West Ham waxay rabtay in heshiiskan la dhameystiro 100 milyan farta laga saaro suuqa ay galaan ciyaaryahano ay soo qaataan qorshaha West Ham ayaa ah inay la soo saxiixdaan Harvey Barnes wiilka Leicester City heerka labaad oo la laabtay laakiinse habsami ku yimid dhameystirka Arsenal ee Declan Rice ayaa sababay in Newcastle United ay kaga hormarto Barnes midaan West Ham madax xanuun iyo waxay ku riday carig weyn maadaama ay rabeen ninkan inay soo qaataan lacagaha marka la siiyo saxiix kalena ay raadiyaan Arsenal ayaa lacagta aan bixi weysay sida darteedna nimankan waa laga dulqaaday Barneska ee Leicester City ka doonteen marka waxay bataagiin anaga waa lagu garaacay heshiiskaas sababtiisana waxa lahayd nimankan Arsenal marka Arsenal budgetkeeda koowaad ma ay 100 milyan inay ka bixiyaan ninka Declan Rice laakiin waxa ku qaarijisay nimanka Man City oo meesha soo galay waxa dhanna ka kala kiciyay muuqaalada YouTube-ka hadda yaalana mid kamid ayaa uga hadlay uu yiri Arsenal ayadoo careysan ayay ninka iibsatay Man City-na baxarka iyo waxa gelisay West Ham iyo nimankan hadda isku mari laayihiin West Ham waxay taagantaa anagu nimankan heshiiska ma dhameystirayaan ciyaaryahankan ma rabaanba lacagihiina way naga haystaan heshiiskan wuu dhacay lacagihiina nasiya hadii kale ma tahay dacwo ayaa idinka gudbinaya marka labada kooxood sida ayuu khilaafku ku taagan yahay West Ham United waxay taagan tahay boqolkiina farasaarkaana la siiyo inaga suuqeena galena waxayna doonayna 5 milyan ma tahay bandhiga ninkaas oo kuma xirno waa iska sugeena laakiin haatan waxa u baahanay lacagteena Arsenal waxay taagan tahay anagu lacag ma hayne seeyaan intee ka baxna ay wadaan marka mowduuca dhibaatada meesha ay ka jirtaa waraqyada muuqaalka hesho la garay kana subscribe noo sar Arsenal mid ay jirtay iska ogaada